الميليتا ayaa wax walba isbedeleen askari kamid ah ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu ku dhacay gacanta cadawgiisa ee Vietnam kadib markay saaxiibadii ku wada dhinteen dagaalkii adoo muuqaalkeen waxa uu ku saabsan yahay ninkan naftiisa ma la badbaadi doona askarigan Mareykanka xaaladdu waa ay ku xumaatay waxaana uu taagay dalkaaga ma ku noqon doontaa naftaadi ma la badbaadi doontaa laba saaxiib filinkeenu waxa uu ku bilaamayaa diyaaradaha dalka Mareykanka oo rusheynaya kaymaha Vietnam dadkoo dhan waxay aaminsan yihiin inuu dagaalkan isku bedeli doono dagaal weyn oo adduunka oo dhan saameeya waxayna u jeednaa saaxiibayaal dhul beereed kamid ah dalka Vietnam oo lagu garaacayo bambooyin iyo xabado hadda waxaynu u jeednaa saaxiib gudaha markabka USS Ranger oo ku sugan badweynta Tokyo markabkaas waxa saaran duuliye tangar iyo saaxiibadii isla markaa taliyahoodii ayaa la hadlay waxaana uu sheegay istaraatiiji isagoona u sharaxay habkii ay dagaalka u geli laayeen iyo sida ugu fiican ay dagaalka uga soo bixi laayeen isla markaa wax yar kadib hal filin ayaa ay daawanayaan saaxiibayaal markabka gudihiisa ayaa ay hal filin ku daawanayaan filinkaas oo ku saabsan sidii ay naftooda ula badbaadin lahaayeen uguna soo baxsan lahaayeen kadib Dangular ayaa codsanaya waxaan oranayaa aniga jeeba la igu sameeyo kadib jeeba ayaa lagu sameeyaa waxaana uu ku qaadanayaa baasaboorkiisa markii ugu dambeysay waxaan u jeednaa taliyahoodii oo la sii hadlay ciidanka dhammaan iyagoo ciidanka oo dhammaystiran kadib duuliye Dangular iyo saaxiibadii ayaa gidaarka madaxa saarnay markay gidaarka madaxa saartaan waxay sameynayaan sidoodii akshankoodii kadib way ku ducaysanayaan inay dagaalka ku nabad qabaan marka waxaan u jeednaa afar diyaaradood oo la kiciyay iyagoo lagu kicinaya cadawgooda Vietnam marka diyaaradu saaraa Dangular ayaa hal mar baalku ka go'aya hal mar markuu baalku ka go'o kadib xeeladiisa ayaa ku qabanaya diyaaradii waxaana uu isoornay intaan ku dhicin isbadbaadi kadib diyaaradii waa uu ka boodaya diyaaradiina waa ay gubanaysaa hal mar ayaa ay arkeen ciidamadii Vietnam kadibna waa ay bacsanayaan waana soo ariyanayaan waxaana uu ka galayaa kayntan isagoo kolba meel kaga dhuumanaya kadib kayntan ayaa uu ku dhuumanaya saaxiibayaal waxaynu u jeednaa taliye Dangular oo caleemo waaweyn dhakada iska saaraya isagoona meel ku gabaadsanaya meelna dhufays ka samaystay isla markaa hal mar ayaa uu arkay helikabtar dul maraysa oo Mareykanku leeyahay kadib waxa uu soo dhanayaa soo bax oo dad ayaa meeshii soo maraya kadib dib ayaa ugu noqonaya helikabtarkiina waa uu ka tagaya kadib dhagax ayaa uu ku istaagaya helikabtarta ayaa uu gacmaha u haadinaya meetin Dangular isagoo biyahan ka cabaya ayaa hal mar la qabanaya waxaana qabanaya ciidamadii Vietnam kadibna waa la soo kaxaynaya waxaana la keenaya xabtuula kamid ah dalka Vietnam waana xirxirayaan ciidamada dalka Vietnam kadib waa ay ka xaraabaysanayaan iyagoo kolba nooc xirxiraya ciyaalkooda yaryar ayaa ay ku sii deynayaan Dangular intii xigtay waxaan u jeednaa Dangular oo magaaladii laga soo kaxeeyay iyadoo la keenayna magaaladan isla markaa ninkan ayaa loo keenaya ninkan ayaa ku oranaya ciid warqada ay saxiix intuu raado ciidamada Mareykanka kuma jira ee waxaan ahay shacab kadib waxa lagu oranaya warqadani saxiix waxaan ku cambaaraynayaa dalka Mareykanka waa uu diidayaa Dangular waxaana uu oranaya kama soo horjeesanaya dalkayga kadib waa la kaxaynaya iyadoo la jiijiidayo kadibna waxaan u jeednaa Dangular oo ciqaab loo bilaabay iyadoo lugaha loogu xidhay marna la foorarnayo sidoo uu dawaqo iyadoo lugaha cirka lagu xidhay kadib biyaha la galgalinaya Dangular madaxa iyo wajiga waa loo galgalinaya kadib waa la soo xidhaya waxaana loo keenayaa labadiisii saaxiib labadan waa laba duuliye Brian iyo Martin waana laba askari oo duuliyaal Mareykan ah sanado badan ayaa meesha ku xidhnaan waanu la yaabanaa Brian waxa uu kaxeeyaa Dangular isagoo u sharaxaya xabsiga magaalada waxaana uu kala tustusaya xabsigii waxaana uu ku oranayaa meeshan isdaqdaqaatin waa inaad gacmaha kor u taagtaa kadib waa istaagayaan maalintii oo dhan waxay dhaxmarmaraan halkan xabsiga iyagoo habeenkii lugaha si waaliya looga xidha saaxiibayaal laguna xidhxidha loox wax yar ku yara xasuusiya saaxiibada dadku cusubtay channelkeena subscribe noo tar adigoo like taabanay barnaamijkan inoo share gareynaya waxaynu u jeednaa Dangular isagoo la hadlaya maxaabiistii isla markaana la tashanaya waxaana uu ku leeyahay maxaabiistii waa inaynu meeshan sidee ugu dhaqsaa badan iska baxnasanaa maxaabiistii waa yaabaysaa waxaana ay odhanaysaa shaydaanka iska naafada u baqaya islana meeshan haddaad taadaan ka baxsada laydkuna qabtay koo baxsanaya laydii tooganaya kadib Dangular waa uu ka baxsanaya waxaana odhanaya xilliga ayaynu qoryaasha ka guranayna kadib ciidamadii ilaalada oo iska qadaynaysa ayaa hal mar qoryaashii ka ururinayaan waana ay la dul tagayaan qoryaashii kadib waa ay leynayaan xaray sii deynayaan midkii ugu yaraa iyagoo midkan ugu yar iska deynaya kadib waxay soo galayaan duurka iyagoo blafooda u baxsanaya kadib Dangular iyo saaxiibadii webigan ayaa ay soo galayaan waxaana ay samaysanayaan doon yar oo loox ka samaysan kadib doontii yareed waa ay la jabaysaa waana ay ka badbaadayaan waxaana ay uga baxayaan banaanka hal mar ayaa uu Dangular arkaya diyaaradu leeyahay dalka Mareykanka waxa uu haadinayaa gacmaha kadib waa ay arki waayaysaa kadib maalintii xigtay waxa uu arkaya laba diyaaro dib waxa uu gubayaa kayntan si ay diyaaradu u arkaan diyaaradu waxay moodayaan cadow waxaana ay ku furayaan xabad kadib waa uu qaylinaya waxaana warna iga daaya Dangular waa la soo weeraraya waxaana uu isqabsanayaa mididan kadib waa uu isku furayaa mididan kadib waxa uu noqonayaa Dangular nin waalan waxaana uu cunayaa maska iyo soo naftiisu badbaadayo waxyaabaha duurka ku jira kadib waxa uu arkaya diyaarad Mareykan waxaana uu soo dhiibay saxarin u jeedna Dangular oo soo badbaaday waxaana uu ku soo
noqonaya dalkiisa ciidamadiisa ayaa u imaanaya kadib sacabka ayaa la tumay waxaana kusoo noqonaya gudaha markabkii Ranchoras halkaasoo saaxiibadii aad ugu soo dhaweynaya filkan halkaas ay ku dhamaasay